الله الرحمن الرحيم كسو دوادا دمبر أكاديمي وحا إنو سعودي عشرة تحناها أنكو برانينو مادة HTML عشر كين قدام بي وحا أنكو براني فوم قيبة كمد وحان هالكاس كسي وذينا فوم عشر كي أوري وحا سو سمينا إلا إدور inputs سيدو كاليتا وحا أسمينا بدن داتا دين واسمد قريني عشر كان وحا أنكو بران دونا new elements عصب أوكي formka kaliya ayaan soo reebanayaa inta kale waa iska reebi doonaa okay elementska aan baran doono tookadan waxaa kamid wax loo yaqaano select most developers waxay u yaqaanaan drop down ay u yaqaanaan select waxaa loogu talagalay many information oo list qofka inuu ka doorto mid kamida gudihiisa waxaa gali doona wax loo yaqaano optionki qofka uu dooran lahaa tusaale ahaan kan ugu horeeya inta badan waxaa la dhahaa choose one oo kale haddii aan save garayno ee aan dhahno refresh waxaa u jeednaa waxaana loo sameeyey one select ama one drop down hoos ayaan u bixi doonaa markaan waxaan dhahaynaa wax loo yaqaano another option kale okay tusaale ahaan list of country oo kale Soomaaliya oo kale waxaa kaloo dhahaynaa mar kale option talahaan Kenya oo kale sida arkaynaba waxaana loo sameeyay list of countries kan midka aan rabna ayaan ka dooran karnaa okay waxaa jira marka waxaa la rabaa qofka hadii uu sameeyo drop down labadan wixii kan ka hooseeyo inuu doorto ayaa la rabaa looguma talagalin in la doorto choose one as a level oo kale ayuu u dhigmaa waa hagitaan marka qofkan si uusan u dooranin laba element ayaa u baahannahay laba attribute ayaa u baahannahay afwan attribute ugu horeeyo waxaa dhahaynaa selected wuxuu suuro gelinaa asiga inuu doornaado in aan la dooran karin haddii aan rabana waxaa dhahaynaa space waxaa dhihi doonaa disabled attribute waxay noo suuro gelinaysaa kan inaan la dooran karin tusaalahan waxaa dooranaynaa Soomaaliya waxaa dooranaynaa Kenya laakiin ma dooran karno choose one mar walba ee disabled la isticmaalo waxay suuro gelisaa laba shay unclickable shayga inuu noqdo mid aan la dooran karin iyo waxay kale suuro gelisaa unsavable daatada mar haddii ay tahay shaygaas disable lama save gareyn karo informationka ku jiro halkaas okay abadina tusaale ahaan aan dhahno option USA oo kale aan dhahno sidoo kale haddii aan u baahanahay ka waran kuwan mid kamid inuu doornaado tusaale ahaan ardayda aan diiwaan gelinayno mostly waxay u badan yihiin 98% 98% Soomaaliya ayay joogaan qofka inay sidaas u doornaato ayaa qurux badan wax diiwaan gelinayo Soomaaliya ayaa imaanaynaa waxaa dhahaynaa selected page-keena mar walba aan imaano waxaa doornaanayo Soomaaliya mid kalena waa dooran karnaa okay every drop down walba la sameeyo option kan marka aan imaano laba shay ayaa loo kala qaadaa qoraalka halkan ku qoran waxaa loo yaqaanaa option text waa qoraalka uu arki doono qofka front endigan jooga ee wax sameynayo qiimaha kale ee ku jiro gudahan waxaa loo yaqaanaa option value ayaa loo yaqaanaa waxaa dhahaynaa waxaa u baahan tahay marka attribute loo yaqaano value USA differentiga u dhaxay maxaa waaye kan waxaa loogu talagalay qofka userka inuu arko qiimaha halkan gali doono value-gana waxaa loogu talagalay waa qiimaha qofka marka uu doorto haddii aad database ku xirannahay database-keena loo diri doono ee la save garay doono mar walba ee aan u baahannahay drop down inaan sameyno waxaa ku qasbannahay inaan isticmaalno attribute value iyo sidoo kale textigaas inaan ku shubanno qoraalka aan u baahannahay okay mar walba select aan sameyno haddii aan rabno selectigan inaan magac u sameyno optionska uma sameynayna waxaan u sameyn doonaa selectiga kore waxaa dhahaynaa name qiimaha aan rabno ayaan u baxsanaynaa waxaa dhahaynaa country oo kale haddii aan rabno inaan ku darno some attribute class iyo wax lamida waxaa ku daraynaa information walba aan u baahannahay selectiga ayaan ku daraynaa kasoo qaad haddii aan rabo drop down kan dhan inaan waxba laga bedeli karin waxaa dhahaynaa
disabled. maxaa dhacay fiiri qofka wuu arki karaa kaliya laakiin qiimahan waxba kama bedeli karo. waxaan u malaynayaa selecti inaan aada u fahanay. hoosa u baxaynaa waxaa u baahanahay haddana inaan isticmaalo another new element kale. waxaa ugu yeeraynaa kan wax loo yaqaano waa text. waxaa dhahaynaa text area wax la dhahaa. text area haddii aan save gareeyo waa input loogu talagalay in lagu qoro descriptionska ama wax loo yaqaano commentska in lagu qoro. waa input aada u baaxad weyn oo ka duwan inputyada kale. haddii aan rabno inaan badino ballacan ama dherarkan oo height-ka ah waxaa jira laba shay wax loo yaqaano attribute columns la dhahayo. columnska uu u baahan yahay 20 oo kala dhahaynaa. waxaa kobci doona hadda ballacan salaada anaga waxaa u malaynaa 20 inaas isku joogna hadda 50 oo kala dhahaynaa. sida aragnaba waxaa dheeraaday inputka ballaciisa. waxaa dhahaynaa 30 still way badan tahay. waxaa dhahaynaa 25. haddii aan rabo ballaca inaa kordhiyo waxaa jira attribute isagan lagu magacaabo rows. waxaa dhahaynaa 20. okay 20 aaday u badanaysaa. waxaa dhahaynaa 10 oo kale. marka waxaa aada loogu talagalay qofka waxa uu qoraayo inuu arko. talaan new line la imaanaa new line informationka uu qoray waxaa u fudud qofka inuu dib u akriyo uu fahmo uu dib u akriyo. okay text area waxaa loogu talagalay more commentska in loo isticmaalo. waxaa halkan ku baranaynaa haddana element kale ka agdhow qaabka shaqada loo yaqaano data list loo yaqaano. waa drop down ku ka agdhow yahay laakiin wuxuu dheeryahay asiga search ayuu leeyahay. mar walba ee aan rabno inaan sameyno data list waxaa dhahaynaa input type text. inputkeena waxaa u sameyneynaa attribute lagu magacaabo list. listigan wax walba ayaan u baxsan karnaa. waxaa dhahaynaa number ayaan u baxsanaynaa. hadda waxaa noo sameysmi doono only input caadi ah. wax listiya ma dhacayo. hoostiisa ayaan imaanaynaa. waxaa sameyneynaa attribute lagu magacaabo data list. element adhaho lagu magacaabo data list. elementigan gudihiisa waxaa galaya wax loo yaqaano option ayaa geli doono. okay tusaale ahaan intoo kale waxaa dhahaynaa Soomaaliya. still xiriir ma yeelanayaan. inputkan waa sameynay waxaa u sameynay attribute lagu magacaabo list magacaya u bixinay. waxaa la rabaa daatada inta ku jirto halkaas marka aan dooranay aan click siino inay soo muuqato. waxaa u baahannahay inaan isku xirno data listiga. waxaa u sameyneynaa attribute lagu magacaabo id. magaca aan u bixinaynana waxaa qasab ah inuu noqdo magaca aan u bixinay attribute-ka listiga ah. refresh. hadda maxaa dhici doono maxaa qaldan id sorry kana si qaldan u qornay. waxaa dhahaynaa number. refresh. haddaan hadda imaano fiiri aan badino waxaan tusaale ahaan waxaa dhahaynaa option tusaale ahaan Kenya. option kale Yemen oo kale USA. option kale Turkey oo kale. haddaan refresh way soo baxaan. laakiin haddii aan qorno Soomaaliya waxaa noo soo wada baxaya Soomaaliya. haddii aan qorno Kenya, haddii aan dhahno USA, haddii aan dhahno Turkiya. kii haddaay muxuu uga duwan yahay kor ayaan u baxaynaa. waxaa disable-ka ka soo qaadaynaa midkan. marka aad joogno drop down only waxbaa select garay karnaa. laakiin kanna fiiri waxna waa select garay karnaa. sidoo kale waxaa sameyn karnaa inaan search garayno waxa aan u baahannahay. differentiga u dhaxeeyo sidaas ayuu noqonayaa. halkaas ayaan kusoo koobi doonaa cashirkeeni. wassalaamu calaykum waraxmatullah. kulanti dambe oo xiiso leh.